wacan wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta madana wadalahaantiinba waxaad ku soo dhawaad barnaamijkan aan ku eegayno waajibaadka dakhliga ama canshuuraadka ee guud ahaanba saaran shacabka iyo weliba faa'iidooyinka ballaaran ee horumarinta dhinaca dal iyo weliba deegaan uu leeyahay dakhliga ama canshuurta oo sidii loogu talagalay loo soo xareeyo. guud ahaanba barnaamijkan ayaanu waxaanu ku eegi doonaa waa sideed soo xareynta ama waa sideed soo ururinta canshuuraadka looga baahan yahay qaybaha kala duwan ee shacabka ee ismaamulka magaalada Togwajaale. waxaanu ka wareysanay madaxa xafiiska dakhliga ee ismaamulka magaalada Togwajaale mudane Zakariya Cumar Nuur. horaantiina waxa uu guud ahaanba mas'uulkan uu ku bilaabay waxqabadka xafiiska iyo weliba guud ahaanba howlaha xafiiska uu qabtay ku aadan kor u qaadista dakhliga ama canshuuraadka looga baahan yahay in uu sanadkan soo xareeyo xafiiska dakhliga ismaamulka magaalada Togwajaale. xafiiska dakhliga magaalada Togwajaale intii isbedelka kadib waxa uu ku talaabsaday korodh dakhli oo sanadba sanadka ka dambeeyay oo kor u sii kacay. tusaale ahaan 2011 2012 2013 2014 iyo 2015 hadda ku jirno sanad walba sanadka ka dambeeyay wax uu dheer yahay. tusaale ahaan sanadkii 2011 dakhliga la soo saaray wuxuu ahaa 26 milyan iyo 970 kun halka uu sanadkii ka dambeeyay ee 2012 ka noqday 36 milyan iyo 650 kun oo bir. sanadkii ka sii dambeeyay ee 2013 waxa uu isla noqday 39 milyan iyo 970 kun. sanadkii 2014 isna saas la mid ah kor u kac dakhli oo wuxuu ku sameeyay uu gaaray xafiiska 44 milyan iyo 87 kun oo bir. sanadkan hadda aan ku jirno ee 2015 isna dardar fiican baa muuqata oo u eg in uu ka badanayo sanadkii hore tira aad u sareysa uu ka badanayo. tusaale ahaan labadii rubuc ugu horeeyay waxaan soo saarnay 30 milyan iyo 770 kun. rubucii saddexaad oo imika bilaabmay isagana dardartiisu way fiican tahay. waxaan rajaynaynaa 30 milyan 30 lamid inaan soo saari doono iyadna labadan rubuc soo socdo. marka guud ahaan sanadka lacagta la qorsheeyay la soo saaro waxa weeyaan 60 milyan. hase yeeshee waxaan noo qorshaysan inaan soo saarno dakhli dheeriya oo intaa ka badan inaan soo saarno ayaa qorshaha noogu jirta. dardarteedina waan wadnaa. ilaha dakhli ee aan ka soo saarno ayaa ah kuwii maalinlaha ahaa, kuwii bilaha ahaa iyo kuwii sanadlaha ahaa. imika waxaan wadnaa cashuurtii dhulka oo iyaduna aan 6 qabalay ee magaaladu leedahay si fiican uga bilownay meel fiican noo maraysa. muddo 2 toddobaad gudaheedina aan ku soo gabagabayn doono. toddobaad iyo badh hore ayaan soo wadnay 2 toddobaad dambe haddaan sii wadno shaqada waan soo gabagabaynaa. dakhli fiican oo ka soo hooyna sida qorshaha noogu jirta. mas-uulkan ayaa sidoo kale waxaanu ka wareysanay arrimaha kaalinta lixaad kale ka qaadanayo in la soo xareeyo dakhligii la qorsheeyay ama in la soo xareeyo dakhli badan iyo weliba guud ahaanba howlaha kala duwan ee dhinaca wacyigelinta ee loo baahan yahay si loo soo xareeyo dakhli badan oo lagu hirgeliyo guud ahaanba kaabayaasha kala duwan ee dhinaca horumarinta ay u baahan yihiin shacabku. hadii jeer dakhligu horta wuxuu ku xidhan yahay xafiisyada adeeg bixinta ay sameynayaan. hadba marka la wanaajiyo waxa kor u kacaya dakhliga ka soo baxaya adeega fiican la bixiyay. sidaas la mid ah heerka wacyigelinta ee la bixiyo ayay waxay ku xidhan tahay dakhliga ku soo bixi doona. wacyigelinta markay fara badan tahay waxa u diyaar galowaysaa dakhli fara badan oo ku soo xaroodo. afartaas sano isbedel ku jirayba isbedel baa jiray muxuu ahaa xafiisyada ay sameynayaan sanadba sanadka ka dambeeyay. sidii ay adeeg bixinta u sii kordhinayeen waxay caawisay mar labaad dakhligii in uu kor u kaco xafiisyadii laga helayay kala duwan magaalada. ilaha dakhliga ka saxaro adoo loo taabanayaan tusaale ahaan waa dakhliyadii maalinlaha ah ee ka soo xaroonayay goobihii dakhliga xafiisku lahaa iyo ilaha dakhliga ka soo xarooda xafiisyadan dakhli dhaliyayaasha sida xafiiska adeeg bixinta, xafiiska xeer ilaalinta, xafiiska ganacsiga, xafiiska bilicda iyo nadaafadda, maxkamadda. dakhliyadii ka soo baxayay markii la isku wadageeyay iyo kii maalinlaha ah inaanu soo saaranay ayaa heerarkan la gaaray kala aad ku sareeyay dakhliga inoo soo baxay.
Zakariya Cumar Nuur madaxa xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada Togwajaale ayaa sidoo kale waxa uu naga warbixinayaa ilaha iyo weliba nooca dakhli ay ka soo xareeyaan dakhliga ama canshuuraadka ay soo xareeyaan. xafiisyada loo wadaagta aad u farabadan yihiin qaar baa waxay nagala shaqeeyaan sidii dakhliga loo soo qaadi lahaa qaarna iyagoo dakhligii soo saaray ayaa kaliya waxay nala wadaagayaan numberka ay hayaan bangiga soo shubay shaqaalaha loo diray rasiidka ayaa arfiga loo jaray tusaalahaan xafiisyada sida had iyo jeer annaga nagu lamaanay nala shaqeeye nala soo ururiyo dakhliga waxa kamid ah xafiisyada nabadgelyada sida maleeshiyada oo kale goob walba dakhliga waxa uu joogo dakhli gure waxa ku lamaan askari ama hal ama laba askari baa ku lamaano iyaguna kala shaqeynaya sidii loo horseeri lahaa dakhliga. Zakariya Cumar Nuur madaxa xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada Togwajaale ayaa waxa uu naga warbixinayaa caqabadaha ku aadan soo xareynta ama soo ururinta dakhliga ama canshuuraadka ee loo baahan yahay in uu xalliyo xafiiskiisa iyo weliba guud ahaanba maamulka magaalada Togwajaale. caqabadaha jira ee ka magaalo ahaan in xalin loo baahan yahay waxa kamid ah in sayladii xoolaha oo kale hadii ay active gareeyo ay noqoto mid shaqeynaysa maalin walba intaas oo neef marka la kala iibsado inuu dakhli ka soo xaroonayo ayaa hubaala haddii sayladoo kale imika ay shaqeynayso dakhli lagu xisaabtamo ayaa halka kasoo bixi lahaa. waxyaabaha kale caqabada ahi waxa weeyaan tusaale ahaan dhankan jibriyada oo kale markastoo ay adkaato isku gudubkii iyo muxuu ahaa qabashadii alaabihii magaalada soo gelayay dakhliguna hoos buu dhacay annaga. Mas'uulkan ayaa sidoo kale waxa uu codsi u diray qaybaha kala duwan ee bahwadaagta ay ka wada shaqeeyaan soo xareynta ama soo ururinta dakhliga ama canshuuraadka. horta codsiga ugu weyn waxaan u dirayaa jibriga iyo xafiiska ganacsiga ee deegaan inay saxaan oo si sax ah u diyaariyaan kootadii ay magaalada Togwajaale xaq u lahayd oo ay soo saaraan oo nidaaman cidna ka gudbi karin la diyaariyo ayaa muhiim ah. fariinta kaliya indiriya xoogay labada xafiis inta iskaashadaan inay diyaariyaan kootadii magaalada xaq u lahayd. damayntii Zakariya Cumar Nuur madaxa xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada Togwajaale ayaa waxa uu fariin u tabinayaa guud ahaanba shacabka magaalada isagoo ugu baaqay in ay shacabku ay kaalin lahaad leh ka qaataan soo xareynta waajibaadka dakhliga oo ah mid saaran muwaadinka. halkan waxaan uga faa'iideysan lahaa bulshada inaan la wadaago sida ay bulshadu la socoto waxaan soo wadnay cashuurtii dhulka oo muddo 7 iyo badh aan soo wadnay imikana meel fiican maraysa. waxaan doonaynaa inaan kusoo gabagabeyno laba toddobaad soo socda hawsha cashuurta dhulka bulshada waxaan rajaynayaa sidii ay awalba u bixin jireen dakhliga inay u soo bixiyaan imikana isla sidii oo ay si degdeg ah u soo diibaan wixii qof walba ku waajibay si aynu u fulino baahiyihii kala duwanaa ee magaaladeennu u baahnayd in wax laga qabto. insha Allah sanadkan dhamaadkiisa miisaaniyadna waa nagu qabanay cashuur bixiyayaasha ugu firfircoon oo nu yeeri doona oo awaal marin doona haddii Ilaahay raahdo. وهاجاك دعوة ديالنتاas aynu ku soo afmeereynaa barnaamijka arrimaha maamulka suuban ee dareenka dadweynaha. toddobaadkan aanu ku soo qaadanayna waa sidee gudashada waajibaadka soo xareynta dakhliga ama canshuuraadka ee looga baahan yahay shacabka gaar ahaan maamulka magaalada Togwajaale. inta barnaamijkan min lamid ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.